Ethiopia warar badan baa idinka hayaa maya lagu maqlaa wala yiri mufti share gareeya videoga dadkoo dhan gaarsiiya Ethiopia wixii ugu dambeeyay akhbaar ahaa mas'uul sare oo Ethiopiana ma aha Soomaali mas'uul sare oo Ethiopiana soo waraysanay wararkii ugu dambeeyay uu noo dhigay way qoran yihiin horteeda yaalaan way idinla share gareynaa insha Allah intaa guud share gareeya marka dhamaantiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أد بدين سلام يا ويذكر هالي قلنا يا إن الله أنت إن وتكنيكال برنامج هذا أسكر بدن مرك خارق ميت باسمين ميت هذا أقول ميكروفون دي بدن مربى مدخل هذا كوس وقبنا كمبيوتر كحكور كبرنا تاسو ميكروفون وكل دون مدخل هذا جلسة أضو لايفا برنامج كنا نقول يا رمتي حالة دي إثيوبيا وجن بيسي دجال كي وصعدا si fiican baa la isu gacan saaray TPLF iyo EPP runtii ilaa hadda dowladda federaalka Ethiopia guulaha la taaban karo ee gaadhay ilaa hadda ay ku yara faani karto waxaa ka mid ah inay xuduudii ka soo xirtay nimankii Tigreega ahaa waxaa la geliyay oo baa la geliyay albaabkiina waa laga taagan yahay daaqadiina waa laga taagan yahay marka qol bay Tigreega oo dhan iyo TPLF iyo haweenkii oo dhan taas waxaa weeye waata ay guushu la taaban karo ee dowladda federaalka gaadhay waa taas canfarta dhinaceeda waa laga xiray dhinacii amxaaro waa laga xiray dhinacii eritrea waa laga xiray waxaa kaloo laga xiray dhinacan kaleete ee suudaan marka intaa iyadaa way ku guulaysatay waa guusha la taaban karo ee federaalku sameeyeen waxaa kaleeto oo dhacday shalay ilaa shalay fiidadkii waxay tigreegu ka baxeen dhul badan bay u baneeyeen deegaano badan bay u baneeyeen iyagoo ciidamo sida inay jabeen camal ah ciidamadii amxaaradii jabhadoodii oo dhan iyagoo ordayay galeen furintii waxay u haysteen inay tigreegu jabeen runtiina dhabar jabin loogu talagalay bay ahayd ciidankii federaalka iyo qowmiyaddii amxaaradu waxba kama harin baa yiri ciidankii meeshaas galay cagtaa la mariyey yacni si fiican bay TPLF u samaysay waana khiyaamo ay u dhigtay baa yiri runtii ugu yaraan mas-uulkan ii warramay wuxuu ii sheegay saraakiishii dowladda federaalka afkooda ka sheegay يعني markay dhulkii tigreega soo galeen waxa lagu sameeyay buundooyinkiina waa laga jaray si ay isugu gurmadaan waa waayeen marka taangiyadii waa laga qabsaday ciidankii waa la hareereeyay waxa way ciidan aad u badan oo dowladda federaalka halka ku dhintay oo maaragtay gacanta TPLF ku baxay waana khiyaano ay TPLF ugu tala gashay iyagoo iska dhigay inay jabeen camal si xuduudan ciidanka ay isku duuban ay u qabjabiso runtii ciidan aad u darbaxa aad u xoog badan baa dowladda federaalka soo garaa la yiri darbaxada shalay ku dhacay dowladda federaalka ilaa hadda meel ay ka hadasho weylaadaha la yiri activistiyaashii federaalka oo dhan wax social media iyo twitterkii u dhawaada waa leeyahay macal Abiy Ahmed yacni jugtii shalay soo gaadhay ilaa maanta miskii hore oo ah in maaragtay buundooyinkii intii laga jaray dhul loo baneeyay oo tigreega dhulkoodii ay soo galeen ciidankii albaabadana lagu xirtay si fiican maaragtay halka loogu jabiyay waa ciidamada maaragtay jugta gaadhay nin sargaal oo dowladda federaalka wuxuu sheegtay 7 taangi in laga qabsaday ciidan badan la xasuuqo runtii waxaa la isku raacay amxaarada xuduudka la leh tigreega jug aan la qiyaasi karin ayaa soo gaadhay dad badan iyo ciidan aad u badan oo meesha gurmud u tagay ayaa laga laayay markaad eegtana dowladda federaalka aad uma hubaysna cududoodu aad bay u hooseysaa runtii sidii la filayay ciidanka Ethiopia waxa loo haystay ciidan tough ah oo TPLF hore ka guuleysanaya ama kaarta sare ku socda ayaa loo haystay laakiin arrinta iyada been maleeshiyaadka habqana oo amxaaro u badan ayaa meesha galay si fiican baana dhigaa looga soo jabfay runtii hub badanna waa laga qabsaday laakiin dowladda federaalku waxay ku guuleystay in xuduudada ka xidho oo Suudaan dhinaceedina waa ka xiran tahay Eritrea iyo canfartii dhulkan waa ka xiran yahay taas iyada marka waxa weeye waa xaalka maaragtay dagaalkiina federaalku waa lagu jabay ilaa hadda mas'uulkan ii warramay wuxuu sheegay oo yiri يعني وأنا لسه بيري ميديها أبي أحمد يتيم كيسي ويرك قاضي هالقف وهلا يكون مجرور هالقف وهلا يا وميديا وسود وانا ملودي أول مركة إنيرو اللي بينا هلان أما تولي قبصان وحبان قبصنا يوي جرون لكن إلا ما أنت وحجزو بري سوشيال ميديا وكعاجين وكعرين صوت جوك تجاري إذا كي وبناي لو تلقى تكرين وقبطه ويران كلا بر قعنت تكرين وقلي
isagii iyo hubkiisii buundooyinku waa lagu jaray degmooyin iyo tuulooyin baa halkaa lagu xirtay marka waxaad moodaa colaaddu inay aad iyo aad u sii badanayso mas-uulkan waxaa kaloo ii sheegay in maaragtay magaalooyinkii iyo wuxuu ka cudur daartay runtii isagoo highway saaran baan la hadlay wuxuu yidhina waxay ahayd inaad soo wacdo anoo guriga jooga sababta tuulooyinka iyo waxa las qabsaday iyo detailka oo dhan waan hayaa buu yidhi laakiin ma awooda baan ku yidhi live baan gelayaa macluumaadka ugu dambeeya updatekiisii arrinta kaleete ee meesha jaagaa waxay tahay dowladda masar ayaa waxay ku antacootay in laga gubay warshad ay ku lahayd dhulka tigreega oo maalgeliyeen oo ganacsatada iyo dowladda masar ay lahayd hanti ay maalgelisay oo stateka tigreega ku taallay in la gubay marka arrinta ayadaana waxaa loo arkaa inay masaaridu marmarsiyo ka dhiganayso oy rabto in dagaalka si dadban oo dhaqsaa u gasho oy gacan u siiso TPLF sababtoo masar meesha waxay u timid ma dhihi karto webigii baan u socdaa iyo si kale dagaal iskama geli karto marka hantidaydii iyo ganacsigaygii aan tigreeg ku lahaa baa la burburiyey qaab noocaasa ay maaragtay ku andacoonaysaa baa layidhi nimankii masaaridaha iyada taasaa meesha iyada laga sheegayaa waxaa kaleetoo jirta tigreegu ilaa hadda dhowr caqabadood baa jira xuduudada haddii laga xidho waa xaalad adag yacni wargeysyada eritrea kasoo baxay waxay qorayaan oo adee niman tigreeg ku hadla oo tigreegana kule ila badan iyagu waxay sheegayaan in nimankii tigreega ahaa ay shidaalka iyo waxyaabo badan gabaabs ku noqonayaan iyo cuntooyinka qaarkood maadaama xuduudadii oo dhan laga xiray arrintan ayna sii wada ilaa iyo hadda abay axmed iyo tiimkiisana istiraatiijiyadooda ugu weyn waxaa weeye long term in tigreega la hareereeyo laguna qasbo wada hadal waa qodob ay maaragtay targetkeedu ka mid yahay mid kale ee prime ministerku ay sameeyeen iyo amxaarada ee cajiibka aba waxay tahay runtii dad ujeedkooduna waa runtii saad ogtiin TPLF degaan Ethiopia oo dhan meel walba la falgashay waxa wax dhisayay waxa investmentiga lahaa waxa shirkadaha lahaa waxa korontada lahaa waxa ganacsiga lahaa Ethiopia oo dhan waxay ahaayeen TPLF marka waxaa lagu sameeyey qof walba oo tigreeg oo hanti haystay terrorista lagu qoray marka magaalada Addis Ababa iyo Ethiopia oo dhan deegaanadan aan tigreega ahayn oo dhan waa laga sifeeyey guusha ugu badan ee Abiy Ahmed iyo tiimkiisa iyo amxaaradu ay gaadheen waxay tahay in tigreega fiilooyinkiisii oo dhan la siibayo runtiina dad badan ba waxay leeyihiinba colaadu ma ahaynba in tigreeg iyo maqala la qabsado maqalla iyo iska karbaash waay laakiin ujeedada ugu badan ba waxay ahayd tigreeg wuxuu ku dhex jiray hay-adaha kala duwan ee caasimadda iyo Addis Ababa isagaa gacanta ku hayay sirdoonka isagaa ka buuxay meel walba bangiyada isagaa ka buuxay Ethiopian Airlines isagaa ka buuxay hoteelada ugu badan isagaa lahaa maalgelinta Maraykanka iyo Ingiriiska ay dhul ku leeyihiin reer Yurub oo dhan iyakaa connection u ahaa marka waxaa la rabaa baa la yidhi in maaragta mid loo siibo xataa Abiy Ahmed iyo tiimkiisu waxay gaareen ninkii huu haystay wasiirka hore arrimaha dibadda maaragtay tigreeg ahaa ee wakaaladda caafimaadka adduunka haystay inay dhahaan ninkaa laftigiisa wuxuu u shaqaynayaa maaragtay TPLF oo maaragtay isagaa connectionka u samaynayo wariyaasha iyo waxan iyo United Nationska waxa kicinaya ee Abiy Ahmed hal jooji dhahay isaga waa ay leeyihiin arrintaa marka waxaad moodaa in maaragtay Abiy Ahmed iyo amxaaradu ay ka go'an tahay in tigreeg xididada loo siibo already-na waa lagu guulaystay xididsiibkii Ethiopiyada kale marka laga reebo tigreega laakiin ganacsigoodii waa la freeze gareeyey bangiyadoodii waa la freeze gareeyey shakhsi walbo caan ah oo tigreeg ah oo ama loo haystay dembi cad isagana waa la qabtay waxa soo haray hadda waa dadka la hareereeyey tigreega la hareereeyaa kuu soo haray meel yani markii lagu hareereeyo waad garanaysaa wax kuu dhiman ma laha waa nin qoyan biyo iskama dhowro wey marka xaalkoodu aad buu adag yahay xaaladda tigreegu ma yeelayaan laakiin arrinta maxaa dhacaya marka dad badan oo analistiyaala waxay aaminsan yihiin reer galbeedku ma saamaxayaan in carruurta tigreegu ay gaajoodaan oo dhintaan oy sida oromada noqdaan waad aragteen shacabka oromada maalin walba waa la dilaa ciidanka federaalku maalin walba galbeedka oromiya iyo tuulooyinka oromiya oo dhan waxaa lagu xasuuqaa dad oromo oo shacaba oo haweena oo dumara oo ragga oo aan waxba galabsanin oo ciidanka federaalka Abiy Ahmed iyo amxaarada wada socda ay ku laayaan dadka iyaga beesha caalamka ma hadasho wargeysyaduna ma qoraan sababtoo danka ma laha kuwa in la laayo waa la rabaa laakiin haddaad fiiriso Twitterka iyo baraha bulshada iyo meediyaha iyo siyaasiyiinta caalamka oo dhan
wax kale kama hadlayaan Tigray baa saan la yeelay iyo Tigray baa la taabtay iyo Tigray baa la taabtay ujeedadeeduna ma aha bini'aadamnimo inay Tigrayga bini'aadamnimo ka tahay laakiin waxay ka eegayaan xagga diinta iyo qowmiyaddan tiro yar oo maaragtay taariikh ahaan ahayd dee dadka lagu joogo lagu caburiyo dadka muslimiinta ee majority-ga sida oromada iyo soomaalida iyo canfarta iyo benishangulka dadka lagu caburiyo wey arrinta marka waxaad moodaa in ay beesha caalamku rabto in dagaalkan ay si walba ku joojiso sababtoo mar rabaan in dad Tigray dhintaan mana rabaan dad Tigray inay gaajoodaan sidaad ogtihiin baa heestii la dhihi jiray 1982 gaajadii ka dhacday dhulka Tigrayga ahayd waa buuraley haddii albaabada laga xiro waxaa dilaacaysa gaajo taasoo ku dhimanayaan boqolaal kun hadda qaxirayda baabuurta Suudaan ku galeen baa wejigooda aad ka naxaysaa maxaa u malaynaysaa marka haddii lagu sii hayo cunaqabataynta xabadana loogu sii daro yacni beesha caalamku marka ma saamaxayso waxaa dhacaysa marka haddii gaajada iyo biyaha laga xiray iyo ganacsiga laga xiray lagu sii wado muddo kooban xataa Maraykanka iyo Ingiriiska tagay oo dagaal ka qayb qaadanaya oo qasab Abiy Ahmedna hadduu Tigrayga sii waxyeeleeyo waxaa lagu qorayaa inuu yahay criminal war yacni ICC baa dacwad ku soo oogaysa haddii marka already hadda arrinta la bushgaraynaya waxay tahay dowladaha reer galbeedku ay rabaan in wadahadal la galo wadahadalkaasi ay nabad ugu dhalato waa yoolkooda markii la qiyaas dad badan markay qiyaaseen haddii dagaalkan ayna Masar soo gelin haddii Tigrayga intay Masar soo gasho xuduudda loo furo oo meel ay hub ka helaan oo lacag ka helaan oo maaragtay ka helaan ganacsi inay dagaalamaan baa laga yaabaa oo dagaalka sii daba dheereedaan laakiin haddii lagu xiro albaabada oo majaacad dilaacdo oo Tigraygu ay qaxaan xaalku maaragtay lama saadaalin karo maalmaha soo socda marka runtii dagaalkan Ethiopia waxaan u haysanay ciidan xoog leh oo xuduud leh oo ma aragtay wax qaban karo oo dee super power loo haysay laakiin waxaa la ogaaday AK iyo BKM bay la ordayaanba nimanka Tigrayga waxay ku hubeysiin hub casri ah snipers oo casri oo intaasoo kilomitir wax ka dilaya wataan waxay wataan qalab aad u casri inkastoo ciidanka federaalka Ethiopia waxaa loo keenay baashi la dhihi jiray drones oo Imaaraadku u keeneen iyo diyaarado casri oo Imaaraadku leeyihiin waxaa jira yimid magaalada Bahardar ee Amxaarada laftigeeda yimid sababtoo Imaaraadkii iyo Abiy Ahmed iyo connection kaleetaa jira oo shidaalka Soomaalida iyo barwaaqada Soomaalida iyo waxaasi in isku daro sidaad awalba ninkii Umar al-Cishq Sacuudigiisu u sheegayba in Soomaalida Ethiopia loo hosgeeyo shidaalkaas Soomaalida ogaadaya Soomaali galbeedna intii la qaado Djibouti laga dhoofiyo Yemen halkaa iyaka Yemen la isku daro marka waxyaabo badan baa halkaa ka salag leh Abiy Ahmed marka iyo activistiyaashii wax hadlaayo waa la laayahay hal qof oo kor u baxa oo hadla oo guul sheegta waa la laayahay Twitterkiisa gal yacni nalkii baa ka dami wixii ciidan uu soo ururiyey oo dhan weeraan kala bar wax la dilay wax la qabsaday iyo wax albaabadu xiran yihiin oo weli buurihii ku jira oo meel u baxaan la aqooyaan qayb yar baa ciidankiisa weli aan gacantiisa ku jirta arrinta la yaabka leh waxay tahay Ethiopia 100 milyan inay South Sudan ka dalbato 4,000 oo ciidan يعني waxay hadda ka baryaysaa mar dhow waxa suurtagal ah Abiy Ahmed inuu dhaho farmaajo ciidan ay soo diray la dagaalama sababta weyn ognahay nimankan Tigreegu waxa way meel carraan ma laha waa albaabadii waa lagu xidhay dambiyo badan way galeen inkastoo dadka qaar ku leeyihiin shacabka Tigreega laftiisa qaar baan jeclayn TPLF-ta oo dhibkan dad badan baa waxay haystaan Tigreega oo dhan inay wada dheregsiin laakiin runtii dhafarkooda markaad aragto haweenkooda iyo nolosha ku nool yihiin qaar badan baa dhibanaa oo dadka la mid aha niman faashiistayaal oo madaxa ba iska noolaa mooyaane marka Tigreega laftigiisu dad dhiban inay yihiin waad moodaa runtii sawirradooda iyo muuqaalkooda markaad aragto xaalka Ethiopia halkaasuu maraya Oromia kuu soo hadhay Oromia deegaanada qaarkood kacdoomada way sii balaariyeen waxayna rabaan hawshan markay aad u sii laba qaraxdo inay sii balaariyaan bay rabaan marka xaaladda Ethiopia runtii waa shayki weeyaan waa xaalad maaragtay qallaasa waan la saadaalin karin marbasay noqonayso midna dad badan baa waxay ku fakarayeen in ciidanka federaalka hore ay ka tegayaan maqalla ay dhulka oo dhan qabsanayaan laakiin arrintaas suurtagal ma ah way qabsan karaan xataa maqalla laakiin ma xasilin karaan xataa hadday qabsadaan ma xasilin karaan sidaa darteed Ethiopia waxay gelaysaa xaalad aad u adag oo dhaqaalaheedu adag yahay sababtoo boqolaalka kun ee ciidanka quudintooda shidaalkooda rasaastooda iyo dee wadankii oo fowda ah oo Oromo dhinac ka dagaalamayso oo Oromo jidadkii xirayso oo maaragtay Benishangulki isaga dhinaciisa ka dagaalamayo oo Tigreega dhinaciisa ka dagaalamayo
oo Soomaalida laftigeeda qandaraasyada xadayso marka Ethiopia waxay ku jirtaa marxalad aan la saadaalin karin waxa ku soo hadhay Abiy Ahmed maaha nin siyaasi ah mana aha nin barnaamij wato hogaamineed barnaamij hogaamineed Abiy Ahmed waa failure weeyaan ujeedadan hadda uu ku socdo yani way sheegeen wargeysyada caalamku way sheegeen waxaa jiray waxaa la waraystay ninkii crisis groupka ninkii u fadhiyay Ethiopia la weydiiyey maxay tahay ujeedada Abiy Ahmed wuxuu ku jawaabay Abiy Ahmed ujeedadiisu waxay tahay buu yiri inuu xukuumad central soo celiyo oo nidaamkan federalismka uu jabiyo laakiin media wuxuu ka leeyahay buu yiri media wuxuu leeyahay Tigreegu waxay taagan yihiin ama Ethiopia ana xukumi haddaan xukumi waayo waa xoroobaya taasana ka dagaalamaya buu leeyahay laakiin wuxuu yiri xaqiiqda jirta waxay tahay buu yiri amxaarada iyo Abiy Ahmed oo wada socda waxay rabaan inay Tigreeg ka takhalusaan markay ka takhalusaan ciday ka gabanayaan male marka waxay ku dhawaaqayaan in laga noqday nidaamkii federaalka baarlamaankoodii beenta shirinayaan waxay leeyihiin Ethiopia federaal maaha Ethiopia waa central dowladda magacaabaysa gobol tooro kasta dowladda magacaabaysa state walba ninka xukumaya dowladda magacaabaysa ciidamada booliiska meel walba taasoo qowmiyadaha Ethiopia oo dhan ay siiba kuwii la gumaysan jiray sida Soomaalida iyo Oromada iyo dadkii la midka ah iyo Benishanguulka iyo dhibaato badan ku ah runtii waxaa la rabaa in lagu soo celiyo sidii Hayle Selassie Abiy Ahmed waxa uu cadaatay iyo amxaarada waxa uu cadaatay doorasho hadii la galo jaaris inaan lahayn doorasho hadii la galo baarlamaanka 3 meelood 2 meelood ma helayaan marka cod walba waa looga badan xukunka oo dhan waxa imanaya dadka Oromada ay imanaya Soomaalida ay imanaysa qowmiyadaha muslimka u badan ee 70% Ethiopia waa muslimiin kuwaas xukunka imanaya marka lama aqbali karo dimuqraadiyadda oo dhan marka waa in la diido marka waxay rabaan in dimuqraadiyadda Tigreeg in la aado dad baa waxay haystaan Tigreeg in cadaalad laga doonayo la soo edbinayo la soo celinayo no ma arin saas Tigreeg in la edbiyo cadaalad iyo garsoor iyo hadda Abiy Ahmed markuu wuxuu leeyahay the rule of law waa rabaa inaan ku soo celiyo Ethiopia sharcigeeda laga talaabay laakiin sharciga qofka koobaad uu qabanayo waa isaga sharciga ninkii koobaad ee jabiyay ee doorasho Ethiopia oo wadanka kaliya ay yiri coronavirus baa jira doorasho lama qaban karo anagoo Mareykanka 300 milyan ah doorashadii uu qabsaday caalamka oo dhan meel walba doorashadeedu way dhacday looma baajin yani haddii corona jiro qaab kale oo loo xaliyaa jiro doorasho loo qabto laakiin reality-ga waxay tahay Abiy Ahmed iyo tiimkiisu ma rabaan inay dimuqraadiyad dhacdo ma rabaan dadku inay xor noqdaan dadku waxay rabaan inay dad magacyada koobiyaal hor dhigaan kuwaasoo danta dadka wax dana kala hayn hadda si wada arag kuwa Soomaaliya hadda shalay maamulka Soomaaliyeed qaar badan oo calanka Ethiopia wato saa wayst yaad arkaysay calanka Ethiopia saas meel calanka Ethiopia laga haysto ma jirto amxaaradu ma haysato Oromadu ma haysato Benishanguulku ma haysto Tigreegu ma haysto canfartu ma haysato waxa kaliya ciyaalkan yarka caloosho shaqaystayaasha Soomaalida kaliya calanka Ethiopia haysta yani xataa calankoodii deegaanka haday qaataan xitaa waxba aan lahayn calanka waxaa laga yaabaa ciyaalkan mugtay Soomaalidu hadda gumaysi Ethiopia kuma jirto waxay ku jirtaa ciyaal shalay baa mid iga qosinay mugtay mid yaro nin Oromo Axmed Bashiir Laayo wuxuu lahaa Soomaalida xiniyaheedii Cabdilay baa ka qaato xabsi kula jira marka ilaa ama xabsi laga soo daayo ama ogaadaan oo dhinto yani caadi ma dareemayaan waxa la yaabay ilaa hadda Soomaalidu wax saa ka dhigay war calankoodii state-ka may qaataan oo la soo baxaan way calankan Ethiopia kala dhaqaaqdo dagaalamayso waxba u galeen maxaa ku qasbay wax ku qasbay maxay yihiin runtii xoolahoodii oo dhan dadkoodii oo gaajo u dhimanaya oo la'aana qoloji daasan 1 milyan lagu soo qaxiyay geel waxay u urunayaan colaad ka socoto dawladii federaalka joogtay way aad geeliini iyo xooliini iyo milyuumaadkiina ugu direysaan dad kale charity begins at home iyadoo shacabkii deegaanka Soomaaliyeed ay gaajo u dhimanayaan wada rafaadsan yihiin cadaalad darro u dhimanayaan ay hooyooyinka umul raacayaan oo inay ambulance haysan basically yaa waxaa loo dirayaa intaas milyaardiyo ciidan loo dirayaa ciidanka federaalka Ethiopia ciidamada qaranka u diray waana iska gadid weey waa dhaqan jaajuusnimo oo in maaragtay qeyrka u shaqeysay runtii arrinta iyada waa cibaad weyn walibana ay Soomaalidu hadasho sida iyagoo dawladda federaalka BBC istaagaan Voice of America istaagaan meel walba ka hadlaan dawladda deegaanka Soomaaliyeed afayeenadeedii way Oromo hadlaya lama arko amxaar hadlaya lama arko Abiy Ahmed xitaa Twitter-kaas ka adeegsan dawladda federaal baa joogta tan waa state arrimihii Soomaaliyeed bi ka hadli lahayd
waxa Soomaali deegaanka Soomaaliyeed ka dhacay waxa uu qabsoomay waxa ka laabay soo ma ogidin arrinta ugu daran ee deegaanka Soomaalida haysta waxay tahay 11 gobol ee Soomaalida iskoola ma laha iskoola way dhisman yihiin magac macallimiin lacag way qaataan laakiin carruurtu waa bilaa mustaqbal cid jeegaraysa macallinka inuu soo xaadiray iyo carruurtii wuxuu baray midna ma jiraan shahaadooyinka imtixaanka hebelow ii galba dad waxaa arkaysaa shahaado koobiya oo beena qof kale oo walaalkii shahaadadiisa ku shaqaynaya isagoo waxba aqoon deegaanka Soomaalida markii imtixaanada federaalka la gelayo dhammaan Soomaalidu way wada dhacaan bangiyada Ethiopia kama shaqayn karaan xirfado ma yeeshaan sababtoo ah kuwa maamulkooda ah yaa xun marka carruurtooda iyo mustaqbalkooda iyo midna kuma dayaan inay la tartamaan qayrkooda amxaaradu marka carruurtooda waxay soo baraan oromadu way soo baraan carruurtii oromada iyo amxaarada deegaanka Soomaalida ka shaqaysa iyaga bangiyada ka shaqaysa sababtoo ah carruur wax la soo baray kuwii Soomaalida laakiin macallinkii baa lacagtii cunay kii macallinka xukumay ee wasiirkii waxbarashada ma dabagelayo korontada sidaasi la mid bangiga sidaasi la ma jiro wada xisaabtan ma jiro maamul markaasay maanta oo dhan waxay kaaga sheekeynayaan federaal iyo halkan iyo federaal bay ka dhacday ana ma garanayo Soomaalida geesinimadeedii iyo dadnimadeedii waxa la tegay moogta maliyuu booliiska ka siibo waa gara waaye sababtoo maalinkii luu waaga hore dad hadlay ahaan jireen dad maaragtay wax iska celiya ahaan jireen qaabka noocan waaba la arkay hal qof laakiin ummad ilaahay oo wada dhan oo dhammaantood wada cabsanaysa oona hadli karin oo waxba sheegi karin oo maaragtay gabanaysa marka alxaasil arrimahan Ethiopia waan la soconaynaa si dhibli ah waan idin update garaynaynaa wax walba soo kordha dowladda deegaanka waxaa la rabaa baahida dadka Soomaaliyeed inay focus ka saarto inay waxaas Ethiopia federaalku wuu qadiyay dadka Soomaalida ciidan lama qorin shaqaale lama qorin xuquuqdii Soomaalida ee federaalku waa la qadiyay sidaa darteed Soomaalidu canshuurta ugu badan iyadaa dhiibto 400 oo bermiil baa maalin walba laga dhacaa oo shidaal dowladda federaalku intaasaa ugu filan geel iyo lacag iyo ciidan taageeraba haddii hantidii Soomaaliyeed xoog u dhacayso dadkii degmadii laga soo saarayna aan cidna la tashanayn dowladdii deegaankan aan dhicinayn bal at least ka fadhiista raadiyaasha iyo qaylada TPLF waa mujrimiin in la xisaabtamana way fiican tahay qof walboo dembi galay oo nidaamkoodii la soo shaqeeyay in xisaab adag la mariyo oo wax walboo dembi galan lala xisaabtamo laakiin Abiy Ahmed baa ka kow ah qof kale waxba xisaabin baa number 1 ah Abiy Ahmed waa ninka diidan in dadka Soomaaliyeed ay cadaalad helaan waa ninka Jawaar iyo raggii aqoon-yahanada ah ee Oromo ee isbedelkan keenay ee TPLF meesha ka saaray xabsiyada ku haya isagoon sharci horkeenin isagoon maxkamad soo saarin isagoon wax dembi ah ku eedeynin Ethiopia waa wadanka kaliya ee maaragtay aan lahayn sharci adduunkuna sharci waa wax koobaad way runtii Soomaaliya waa imaamay Soomaaliya aragteen Ethiopia Soomaaliya sharci dhaanta Soomaaliya dad wax disho waa lagu qabo waa lagu xiro waa lagu baari oo waxba la sameeyaa حتى maamul goboleedyada Puntland Somaliland ama meesha rabtaan noqoto Jubbaland Ethiopia wax nidaam dawladeed ku jira malaha waa ninka maamula ayaa wuxuu rabo iska yeeli soo rabo u dhaqmi wuxuu rabo sharci kaaga dhigi waa kana wada aragta doorashadeedii oo dhan isbaarki baa la geliyay cilaas ninkii Jawaar ee arkaysan activista khalaadii uu gali kara Jawaar waa la xukumi karaa laakiin waxay diin bulshada horteeda la keeno meel mugdi ah lagu xiray cid ka daba tagaysa malaha meeshaas lagu haysanaya waa afduub muxuu afduuban yahay maxaa lagu taageero iga taageero badnaatay haddaa doorasho ila gasho waad iga guulaysan weliga bal maxaa aragtay nin loo xirayo maxay dadku u jecel yihiin nin loo xiray xagee lagu arkay qowmiyaddii Oromo oo dhan dabka laga shido wax dambi oo gashana malaha marka dowladdii dadkii Oromo dhan qowmiyaddii Oromo dhan ee majority-ga ee deegaanka Ethiopia ugu badnaa xuquuqdoodii wax respect ma jiraan qowmiyaddii Miirada oo maxaaro dhan ma dhahayo laakiin kuwa siyaasiyiinta askarta ee saraakiisha ugu sarsaraysa yaa mujrimiin runtii marka hadhowdii markii laga adkaaday ama qowmiyad kala timaadana way ooynayaan shalay markuu TPLF joogay yani qowmiyadda maxaarada baroorta ka dhacaysay Ethiopia aan dhinet laakiin in yaroo jaanisa markay helaan cadaalad ma falaan ma naxariistaan bini'aadamnimo ma yaqaanaan حتى ودنك والدين لها الليستي انت بدن قاتل ان يرسيه ما يقانان waxaan ku baaqayaa dadka Soomaaliyeed inay midnimadooda ka shaqeeyaan khaasatan mustaqbalka iyo tacliinta in dadka Soomaaliyeed tacliinta ku dadaalaan oo luqadda Amxaariga bartaan oo Oromada bartaan oo sharciga Ethiopia bartaan oo xuquuqdooda ka hadlaan runtii
ilaa hadda dadka soomaalida ururda waa jawaasiistii amxaariga yaqaana dad maaragtay dal shaqo ku leh ma aha dad maaragtay dan soomaaliyeed shaqo ku leh ma aha waxay focuskoodu yahay inay qayrkood u shaqeeyaan khayraadkooda iyo dadkooda say ku horumarin lahayn ujeedadooda koobaad maaha marka taana waa dugudeekumaysi wuxuu tabcado weeyaan laakiin dadka soomaalida runtii way u dhammaatay wey carruurtooda waa bilaa mustaqbal iskooladooda waa down way isbitaaladoodu waa la mid weeyaan laakiin waxaan rajaynaynaa waxbay dhaantaan TPLFT waa la dhaamaa boqolkiiba boqol waa la dhaamaa oo kufsigii badnaa iyo dilkii badnaa wixii ma jiraan laakiin maanta waxay u baahan tahay deegaanka soomaalida jiilasha soo kacaya in wax la baro oo loo diyaariyo qowmiyadaha boqolka milyana sidii looga badbaadi lahaa oo dhulkooda u hanan lahaayeen nasiib wanaag maanta waa deegaanka ugu xasilan baa la dhihi karaa Ethiopia oo dhan ilaahay baana mahadda iskale laakiin waxaa loo baahan yahay xasilooni wax uma tarayso haddii dadkii ayna shaqaysanin dadka soomaaliyeed ma shaqaystaan qaad bay cunaan guryaha ma dhistaan khudaarta kama shaqeeyaan waxyaabihii basic oo dhan qowmiyada kala maalin walba kusoo guuraya qowmiyadaha kalena waxa soo raraya waa shaqadan aan la qabanayn dadka soomaaliyeed hadday beerahooda tabcadaan hadday iyagu guryahooda dhistaan hadday iyagu bajaajtooda wataan hadday ku dhakhtarayso cid u imanaysa ma laha deegaankooduna waa safe laakiin maadaamana shaqadii hoose oo dhan qabanaynin waxaa ku soo qaxaya qowmiyado kale oo shaqaysanaya oo u baahan shaqadii marka deegaanka soomaaliya iyadooban xataa sharciyan kusoo socodka federaalka soke shaqala'aantoodan baa waxay keenaysaa inay in dhulkooda looga bataa dhacaysa marka dambe in dhulkooda looga bataa dhacaysa lagana qaataa dhacaysa runtii marka aad baan maaragtay idiin salaamaya dhammaantiin waxaan idiin rajaynayaa habeen wanaagsan xaalka Ethiopia wuxuu marayaa halkaa buundooyinka waa laisku jirtay ciidamadii meel buuro cidla isla fadhiyaan waa buurihii maqalloyd ogeydeen ee rafaadka iyo silac iyo abaarta ahaa xaalkuna aad buu ogyahay Egypt ma garan karno dadka qaarkood waxay leeyihin warshadaha laga burburiyey oo dhulka Tigray ku yaalay leedahay laakiin waa marmarsiin akhbaartan wixii kasoo kordha berri baa idinla socodsiin doonaa intaan barnaamijkan mid lamid ah ku kulmayno waa anigoo khaliifa oo idin leh intaa iyo nabadgelyo aad baa idinka mahadinayaa waqtigiina qaaliga iyo saad ula socoteen barnaamijka habeen wanaagsan asalaamu calaykum